توبرا kooxda kubadda cagta Arsenal macallin Unai Emery ayaa kalsooni weyn ku qaba aragtidiisa ku aadana ciyaanka qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Cagliari Nicola Prela laacibkan ayaa wuxuu ka mid noqonayaa ciyaartoyda ugu hadalhaynta badan ee suuqa waana mid kaliya uu doonaya in Arsenal ay ka mid noqoto xidigaha sida weyn u xiiseynaya saxiixa laacibkaasi Nicola Prela Chelsea ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxay kalsooni xoogan ku qabtay in 22 jirkaas uu qalmo imaanshaha kooxda kubadda cagta Chelsea garoonkeeda Stamford Bridge ayagoo u arkaya in laacibkaasi Nicola Prela uu noqon karo bedelka wiilka reer Spain Cesc Fabregas oo marka la sheegay in gabi ahaanba aragtidiisu ay tahay mid marka u dhaqaaqi doono horyaalka wadankaasi Faransiiska waxaana ay doonayaan in Nicola Prela uu buuxiyo booska Cesc Fabregas xidigan Nicola Prela ayaa marka lagu qiimeeyaa adduunyadeed gaaraya 45 milyan oo lacagta euro-ga oo dollarhan u dhiganta 50.6 milyan oo lacagta dollarka waxaana sidoo kale loo balan qaadayaa musharaad aad u fara badan inuu ka qaadan doono gigada Stamford Bridge haddii xidigaasi Nicola Prela uu aqbalo inuu bixiyo booska Cesc Fabregas toobara kooxda kubadda cagta Arsenal macallin Unai Emery ayaana marka kamid ah macallimiinta sida weyn marka u xiiseynaya dalabka xidigaasi qadka dhexe Nicola Prela labada kooxood ee kala ah Bayern Munich iyo Real Madrid ayaa si gaar ah u xiiseynaya ciyaanka u dhashay wadankaasi Argentina Mauro Icardi oo sidoo kale la tilmaamay in kooxda kubadda cagta Inter Milan wili il gaar ay ku hayso dalabadii ugu dambeeyay kooxaha ka dhisan qaarada Yurub 25 jirkan Real Argentina ee Mauro Icardi ayaa si gaar ah u daneeysay kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxaana laacibkani ay ku qiimeynayaan adduunyadeed gaaraya 100 milyan oo lacagta banka aragtida labaadna waxay tahay labada kooxood ee Bayern Munich iyo Real Madrid ay si gaar ah u daneynayaan in arintaasi dalabka ku aadan kooxda kubadda cagta Chelsea ay kula xifaaltamaan maadaama Real Madrid ay u baahan tahay weeryahan halka Bayern Munich ay diyaar u tahay in xidigaasi u adeegsato qaybta weerarka Chelsea ayaa caqabad adag waxay kala kulmi doontaa loolanka xidiga Mauro Icardi labada kooxood ee Bayern Munich iyo Real Madrid laakiin labadani kooxood wax lacaga ku aadan xidigaasi Mauro Icardi baysan soo bandhigin Chelsea ayaana hore u soo bandhigtay in ciyaankaasi ay ku soo qadan doonaan lacag gaaraya 100 milyan oo lacagta banka waana aragtida maalqabeenka kooxda kubadda cagta Chelsea Roman oo markaa yiri xidigaasi wuxuu ka mid noqon doonaa weeryahanada imaan doono gigada Stamford Bridge xilli ciyaareedkani kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa adduunyadeed gaaraya 100 milyan waxa ay diyaar la tahay in miiska ay saarto dalabkeeda ku aadana xidiga Alan ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Napoli horyaalka wadankaasi Talyaaniga waxaana arintan la qorsheenayaa inay soo gabagabayaan bisha aynu ku guda jirno ee January sanadka 2019 wana muhiimada koowaad uu saarayo agaasimaha kooxda kubadda cagta PSG in ciyaankaasi marka ay ku soo guuleystaan laacibkan ayaa sidoo kale waxa uu xiiseynaya dhowr kooxood ee ka dhisan tartamada qaarada Yurub laakiin madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Napoli Aurelio De Laurentiis ayaana markaa doonaya in ciyaanka uusan ka dhaqaaqin bishan kooxda kubadda cagta Napoli maxaa yeelay kooxda kubadda cagta PSG waxay diyaar la tahay in markay bixiso adduunyadeed gaaraya 100 milyan waana mid kaliya ee kooxda kubadda cagta PSG kalsooni weyn ku qabaan in arintani ay markaa ku soo gabagabeyn karaan dalabka ciyaankaasi madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Napoli Aurelio De Laurentiis ayaana markaa xusaya in laacibkani si fudud uusan kaga dhaqaaqi doonin kooxda kubadda cagta Napoli wax walba marka ay sameeyaan kooxaha hamiga kaga jira in ciiraankani bishanba ay markaa ka dhaqaajiyaan horyaalka wadankaasi Talyaaniga waa laacib isbedel xoogan ka dhex muujinaya horyaalka wadanka Talyaaniga mana jeclin inaan ku degdegno wixii ka dambeeyay June ayaan ka fikiri doonaa in laacibkani Alan uu saga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Napoli iyo in sanado kale markaa baaqi ku sii noqon doona ayaa laga soo xigtay Aurelio De Laurentiis oo madaxweynaha kooxda kubadda cagta Napoli balse PSG ee kamid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Faransiiska ayaana markaa kamid ah kooxaha ugu horeeya ee safka hore ku jira dalabka xidigaasi Alan wiilka reer Masar ee Mohamed Salah ayaa markii labaad ku guuleystay oo isku xigta abaalmarinta ciyaanka ugu wanaagsan ee qaaradda Afrika waxaana markii labaad oo si isku mid ah ka guuleysanaya xidigaha Sadio Mane iyo Aubameyang hadaba markaan dib u eegno ciyaartooyda uu ku karbaashay markii loo eego abaalmarintani wiilka reer Masar ee Mohamed Salah waxa ugu daran xidiga Aubameyang oo 3 sano ugu dambeysay marka lagu garaacay abaalmarintani ciyaanka ugu wanaagsan ee qaaradda Afrika Aubameyang ayaan abaalmarintani waxa hore ugu guuleystay sanadkii 2015 xilligaasi uu ka guuleystay xidigihii marka la tartamayay ee Yahya Toure iyo Andre Ayew sanadkii 2016 waxa sidoo kale Aubameyang marka ka guuleystay
Riyad Mahrez oo markaasna uu ku garaacay abaalmarintaasi sida Aubameyang iyo Sadio Mane. Mohamed Salah ayaa iskoor la yaab la sameeyay labadii sano ee ugu dambeysay, waxaana Mohamed Salah sanadkii 2017 oo kaga guuleystay abaalmarintani xidigaha Sadio Mane iyo Aubameyang. isla abaalmarintani sanadka 2018 ayana markaa abaalmarinta la bixinayay waxa uu ku garaacay Mohamed Salah sida Sadio Mane Aubameyang. waana aragtida labaad oo wiilka Real Madrid uu sameynayo in xidigahaasi Sadio Mane iyo Aubameyang uu ku garaaco sanadaha 2017-2018 abaalmarinta xidiga ugu wanaagsan ee qaaradda Afrika. macalinka kooxda kubadda cagta ee Manchester United Solskjaer ayaana markaa kalsooni weyn ku qaba in bishan ay faa'iido xooggan ay kooxda sameyn doonto taa oo aragtidiisu ay tahay in dhammaan bartaameedka kooxda Manchester United ciyaartooyda ay ka doonayaan suuqa ay la soo wareegi doonaan. haddaba Manchester United dhowr ciyaartooy ayaa diiwaankeeda markaa ku jira, waxaana ka mid ah ciidanka ka tirsan kooxda kubadda cagta Inter Milan Ivan Perisic oo markaa lagu qiimeeyo duncadeed gaariya 50 milyan oo lacagta banka. waxaa sidoo kale asna markaa la shaaciyay in uu ka mid ah ciyaartooydaasi xidiga Nicola Prela oo asna markaa bartaameed u ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea. waxaa sidoo kale ka mid ah bartaameedka kooxda kubadda cagta Manchester United Nikola Milankovic ayaana markaa asna ka mid ah xidiga Koulibaly oo Napoli markaa u ciyaara. dhammaan ciyaartooydaasi waa muhiimadda ama bartaameedka kooxda kubadda cagta Manchester United waa Ivan Perisic, Nicola Prela, Nikola Milankovic iyo Koulibaly. dhammaan ciyaartooydaasi waa bartaameedka kooxda kubadda cagta Manchester United. tababaraha ku meel gaarka United-ka ee Solskjaer ayaa markaa xusaya in Manchester United ay tilaabo horumar leh u qaadi doonto dhammaan inay soo gabagabayso xiisaha ay u qabto qaar ka mid ah ciyaartooyda ay markaa ka doonayaan dhinaca suuqa in arrimahaasi markaa ay soo gabagabeeyaan. laacibka ka tirsan kooxda kubadda cagta Napoli ee Koulibaly ayaa markaasna lagu qiimeeyaa in ka badan 90 milyan in ciyaaryahankaas uu kaga dhaqaaqi karo horyaalka waddankaasi Talyaaniga. maamulka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay ku dhawaaqayaan in saacadaha soo socda ay soo afjarmi doonaan saxiixii labaad ee ay markaa bishaan doonayaan inay soo afjaraan, waana ciidanka ka tirsan kooxda kubadda cagta AC Milan ee Gonzalo Higuain. warbaahinada qaarkood ayaa waxay hadalhayaan in uu ciidankan u aqbalay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea. waana aragtida 31 jirkaan ee Gonzalo Higuain oo marka uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xirto maaliyadda caanka ee ku tahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. markii hore kooxda kubadda cagta Chelsea waxay ku soo guuleysatay dalabkii wiilka reer Mareykan ee Christian Pulisic oo markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund saxiixiisa markaa ay ku guuleysteen. ciidankan Gonzalo Higuain ayaana markaa ku kacaya adduun dhan 40 milyan oo lacagta Euro-ga, waxaana loo ballan qaadayaa in sanad walba lacag aad u fara badan uu ka qaadan doono. tababaraha kooxda kubadda cagta ee Chelsea Mauricio Sarri ayaa si weyn u soo dhaweynaya kalsoonida geesinimo uu ku dhawaaqayo wiilka reer Argentina ee Gonzalo Higuain oo doortay inuu u soo dhaqaaqo giigida Stamford Bridge. waxaan diyaar u ahay in mar kale wada shaqeyno ayaa laga soo xigtay Mauricio Sarri oo horey soo wada shaqeeyeen kooxda kubadda cagta Napoli ee horyaalka waddankaasi Talyaaniga isagoo xilligaasi markaa u suurtageliyay 37 gool. Gonzalo Higuain ayaana markaa gabi ahaanba doonaya inuu ka laablaabto boorsooyinkiisa horyaalka waddankaasi Talyaaniga, waxaana uu sheegay in saacadaha soo socda uu rajeynayo in wax walba ay markaa soo afjarmaan halkaasi oo ay markaa tusaale u tahay wiilka reer Spain Alvaro Morata inuu isaga dhaqaaqiro gigada Stamford Bridge.